hoggaanka muslimiinta Kenya ayaa ku amaanay madaxweynaha dalka qaabkii uu xushmeeyay aadaankii salaada duhur ee shalay oo ku joojiyay khudbadiisii xilli uu ka hadlayay aaska madaxweynihii hore ee Tanzania John Magufuli. madaxweyne Kenyatta oo duhurkii shalay ka hadlayay garoon ku yaala magaalada Dodoma ee dalka Tanzania oo ay ka socotay munaasabad kooban oo loo sameeyay duugtii Magufuli ayaa waxa laga aadimay masjid ku dhow garoonka uu ka hadlayay madaxweynuhu. markii uu aadaanka maqlay ayuu joojiyay khudbadiisii waxaana dib u bilaabay markii uu aadaanka salaada duhur u dhamaaday taa oo muujinaysa xushmad uu hayo diinta Islaamka sida ay qabaan bulshada muslimiinta ee ku nool wadamada Tanzania iyo Kenya. xogayaha wadamada la isku yiraahday East Africa Community Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadnaqay madaxweyne Kenyatta waxa uu sheegay in Islaamka uu muujiyay qadarin badan xushmaduna waxa uu tilmaamay in Islaamka sal u tahay. waxaan u mahadnaqayaa madaxweyne Kenyatta oo muujiyay wadajir iyo qadarin waxaana muslimiinta tusay inay ku weyntahay diintooda sida waxa yiri Sheekh Maxamed Khalifa oo ka tirsan hoggaanka muslimiinta Kenya. ficilkii uu shalay madaxweynaha Kenya magaalada Dodoma ka sameeyay ayaa guud ahaan muslimiintu soo dhaweeyeen waxayna muujinaysaa in Islaamku yahay diin awood badan ku yeelanaysa wadanka Kenya oo dadku inta badan ay haystaan diinta Kiristaanka. Siciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi.